السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا كنالك فهم كميديا. مانتا وحان كهالي دونا موضوع حيسيسا وتا oo ku saabsan shaqooyinka ugu yaabka badan adduunka waxaana ka mid ah shaqo kaliya ah shaah aad cabayso kadibna lacag aad helayso balse inta aan mowduucaas bilaabin fadlan subscribe noo saar kanaalka si muuqaalada xiisaha badan ay kuu soo gaaraan aroor kasta dad badan ayaa u kala goobaha shaqada ayagoo raadinaya nolol maalmeedkooda caadiga ah shaqadu waxay kaalin la taaban karo kaga jirtaa nolosha bini'aadamka inkastoo ay jiraan dad badan oo shaqo haysan xirfadlayaasha ayaa badanaa boosaska shaqada aanu seegin hadduu qofka uu haysto xirfad way fududahay inuu shaqo helo badanaa waxaanu maqalnaa noloshu way adag tahay haddana arsaaq ma weyno waxaanu helnaa shaqooyin badan oo iska caadi ah sida dhakhtar injineer iyo shaqaalinimo laakiin waxaa la yaab ah inaad maqasho shaqooyin aad u malayso kaftan ama wax dadka loogu qosolsiiyo ma og tahay in qof shaqadiisu tahay inuu iska seexdo kaliya sidaasna uu lacag ku shaqaysto la yaab sug ha degdegin wax ka sii yaab badan ayaad maqli doontaa ila soco shaqada toddobaad joogitaanka safafka ama istaagidda safafka rumayso ama rumaysan qaar baa loo kireystaa in safafka u istaagaan kaliya in dadka kale ka dhaadhiciyaan inay saf galaan oo waxaad aragtay marka lagu jiro safafka tusaale ahaan marka la joogo xafiisyada immigrationka waxaan ula jeedaa meelaha passportska laga jarto meelahaasi waxaa badanaa loo galaa safaf dadka qaar ayaa safka isaga baxa sidaa darteed xirfadlayaashan ayaa dadka ka dhaadhiciya inay safka galaan waxayna qaataan $10 ah shaqada lixaad takaasiga gaarka ah kadib markii ay ku faafeen shilalka wadamo badan oo dhac qaaradda Ameerika haweenku waxay dareemaan qalqal marka ay ku safrayaan wadooyinkaasi sidaas darteed shirkado ayaa maciin biday inay furtaan xafiisyo laga heli karo gawaari gaar ah oo kaliya haweenka lagu qaado gawaaridaasi ayaa lagu naqshadeeyay kalar gooni ah si loogu garto gawaarida kale shaqada shanaad soo saarida sunta abeesada xirfadlayaashan waxay sameeyaan arrin aad u cabsi badan oo waxay soo saaraan sunta maska ugu halista badan sida cobra sunta la soo saaray ee inta badan loo isticmaala ujeedooyin caafimaad waxaana lagu iibiyaa halkii garaam $1 shaqada afaraad kaliya ciyaar ma rumaysan tahay in qof dhan shaqadiisu tahay ciyaaris game isagoo hal shilin dhiibin ma og tahay in shirkadaha soo saara video gameka ka hor inta aysan soo saarin shaqaaleysiiyaan dad tijaabiya gameka oo ciyaaraya kadibna warbixino ka diyaarinaya inta aan la soo gelin suuqa waxaa lagu qaataa shaqadan lacag dhan $38,000 sanadkiiba shaqada saddexaad injineerka shukulaatada la yaab injineerka dhismaha injineerka kombiyuutarka iyo kuwa kale ayaan maqal jirnay balse waxaa jira injineer shukulaatadu waxay ka mid tahay mid ka mid ah waxa ugu macaan laga cuno dhulka dushiisa shaqadan injineernimada ah waxaa laga helaa shirkadaha waaweyn ee shukulaatada sameeya kuwaasoo qayb weyn ku leh suuqyada shukulaatada adduunka hawsha injineerka shukulaatada ayaa inuu qaabeeyo noocyo xiiso leh oo macaan si shirkadu ugu guuleysto suuqyada maadaama tartamo badan lagu wada jiro shaqada labaad dhadhamiska shaaha waa cabitaan gabi ahaanba laga isticmaalo dunida oo dhan dadkuna way ku kala duwan yihiin qaabka ay u cabaan shaaha iyo qaab dhadhankiisa shirkadaha waaweyn ee shaaha waxaa laga helaa shaqo aad u yaab badan oo waxay tahay dhadhaminta shaaha waxay soo kireystaan shaqaalo badan oo xirfad u leh dhadhaminta shaaha iska cab kadibna lacag hel
shaqada koowaad kaliya iska hurud ama waxa lagu magacaabo hurdo yaqaan. waxaa laga yaabaa in shaqadani tahay tan ugu raaxada badan uguna nasiinada badan adduunka. wadamada reer galbeedka qaarkood waxaa ka jira xarumo cilmi baaris oo la xiriira cilada hurdo la'aanta. baarayaashu waxay u baahan yihiin kiisas si ay u qaadaan daraasad kadibna ay u baaraan. shaqada hurdo yaqaanka waa inuu seexdo si baarayaasha takhasuska u leh ciladan hurdo la'aanta ah ay u sameeyaan daraasad iyo cilmi baaris ku saabsan mowduucaas. waxaa jira shaqooyin badan oo aad la yaabi doontid. kaliya baar. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa mowduucaasi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.